أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك Somali Technology caawa waxaan rabnaa inaan sameyno HSRB inta aan HSRB u gudbin sida caadada ahayd Somali Channel marka ay imaatid programkan isticmaalaysa u ogaatid waa inaad taabataa show more meeshay ku qoran tahay and then halkan kusoo fiir channelka waaye halkan data channelka markaas video kasta oo soo dhaco kulley ku soo bixi doona halkaas ku soo dejiso Cisco routers waaye routerada isticmaalayna meesha ku soo dejiso lahayd waaye soo download gareysan lahayd halkan ka soo dejiso GNS3 software-ka isticmaalaya aad ka soo dejisan kartaa halkan waa kala soo xiriir Facebook okay casharkeena oo bilaabanaya HSRP okay waxaan sameynaynaa saddex router soo qaado waxaan kala soo qaadanaynaa switch waxaan kala soo qaadanaynaa normal PC virtual PC okay halkan qaybtan iska leedahay okay is away on screen C1 to Ethernet 1 okay 1/2 1/1 2 gigabyte 1/0 kan waxaa kalena pass internet 0/0 kan waxaa ka dhigaynaa gigabyte 1/0 2 gigabyte 1/0 kan waxaa ka dhigaynaa gigabyte 0 to pass internet 1/1 1/2 to PC-ga على show cables يورد توصي okay okay kan waxaa u aqoonsanaynaa inuu yahay ISP Internet Service Protocol waxaan rabaa host naamka in laga bedelo host configuration waxaan rabaa change host name waa sidaas waxaan rabaa ISP okay kan router 1 iyo router 3 ayaa ahaada dhibaato kama taagna sida caadada ahayd waxaan sameynaynaa waa inaan qornaa markaanayti HSRP dhexdaan ugu talagalnay inaan ka sameyno HSRP horta HSRP maxaa loo soo gaabiyey waay horta okay soo laabo kor soo laabo okay waxay la mid tahay HSRP waxay la mid tahay waa host space stand space routing space protocol
protocol intaasaa loo soo gaabiyey HSRP. Okay, okay, marka ay sidaan tahay halkan soo aad marka haddana waxaan rabnaa marka inaan sameyno ama halkan waraqaada waa host standard routing protocol loo soo gaabiyey HSRP gaasaytii. Okay, waraaq kala soo qaado halkan dhigana tan waxaan leenahay marka IP addresskii 192.168. Okay, HSRP waxaa loogu talagalay shirkadda misaal shirkadda network iska leh ama markaas ay dhowr meelood waxyaabo ku kala leh waayaradooda markuu dhulka ay soo hoos marayaan waxay rabaan markaas jidka ugu sahlan inay maraan yacni connectionkooda inuu fast noqdo. Okay, waxaa kaloo la rabaa meesha taala waxay tahay connectionkaas fast waxaa usii dheer yacni jidka ugu sahlan ugu fast badanaa waxaa laga helayaa jidka ugu soo dhow. hadda marka magaalada aad ka imaatid sidoo kale ama xaafadada aad u socotid dhowr jid gurigaaga waa imaanayaan bas u soo raac baska waxaa laga yaabaa jid dheer inuu kusoo marsiiyo taxi waxaa laga yaabaa jid dheer kusoo marsiiyo marka aad lugeynaysidna ama rabtid inaad lug ku tagtid gurigaaga waxaa jirta wax la dhahayo tubaal ama jiiro yar oo lasoo maraya jirto yacni si sahlan kuu keenayso guriga idan gaari matid sida jidka oo gawaarida marama maraysid marka waxaas dhan waxaa loo sameeyay jidkaas ay magaalooyinka markay dhisayeen waxay tahay yacni jidka ugu sahlan oo guriga aad ku tagi kartid inaad heshid waaye waa sida bani'aadmiga uu nool yahay. Shirkaddana sidii oo kale waxay rabtaa iyadana jidad saasoo tiro badan yacni hal IP address ay ku dhex marayso inay hesho jidka ugu sahlan ay qaadato yacni priority ahaan kan ugu horeeyo in yacni la siiyo kan ugu soo dhow inuu connectionkooda ay ka helaan si haddii kaas uu soo xirmo isla IP addresskaas ayagoo isticmaalaya jid labaad waa inay ka baxaan standby iyo waxaa waaye markaasaytii priority-ga kan kow kan la qaadanayo waa kan ugu soo sahlan kadib markii kaas uu yacni uu soo dhamaado haddana kan kale la qaadanayaa uu soo xirmo kuwa jidadka nadiifinaya ama jidadka maaragtay korontooyinka gelgelinaya fiiladooda ha soo jiraan markaas kadib waa inuu jid labaad ay helaan si connectionkooda uusan u dhimin. saasaa loo isticmaalaa halkan program lama isticmaalo keliya programmadu tiro badan loo isticmaalo jidadkaas yacni connectionka si uu u bato shirkadda connection aan aysan ugu dhicin haddii halkaas fiilo internetka ay ka helaysay haddii la jaro internetkooda ay xirmaayo ama connectionkooda ayaga xiriirkooda dhexdooda ay gudayo taas darteeda waxaa loo sameynaa markay jidad tiro badan oo fiilooyinkooda maraan ay sameysanayaan yacni dhowr jid waxaa jira waxa la dhahayo tunnel waa badan yihiin laakiin hadda maanta waxaa sameynayna tunnel man waa HSRP yacni shortcut hadda waxaan rabnaa inaan ka dhigno qaybtan router 1ka qaybtan dambena aan ka dhigno jidka dambe oo dheer inaan ka dhigno. Okay, maadaama aan rabno okay jidka dambe oo dheer inaan ka dhigno speed labaadaan u baahanaynaa saan arkayo in wuxuu dhan la isku xiro ay noqonaysaa markaas aytana. Okay, sababtoo ilan kan iyo kan waa inay isku xirmaan halkan waa internet service meesha ay internetka ka helayaan haddii halkan go'do waa in halkan lasoo mari karaa ayadoon la isticmaalin EIGRP waxaas aan loo isticmaalinin kan laakiin la isticmaalayo IP address halkan aan ka sameynayno misal.4.1/24 halkan IP address anagoo isticmaalino labadan good yacni gigabyte 20 oo router 3 ah iyo gigabyte 01 oo router 1 ah halkan IP address inay isticmaalaan la rabaa kow priority inuu kan lahaado kan koowaad kan la maray ee noqdo kan markii uu soo go'o jidkan uu xirmo halkan yacni gigabyte 00 markay xiranto oo xirmo waa in halkan la mari karaa. marka si aan saas u sameyno shirkadahan ay iskugu furmaan waa in halkan switch kale aan keenaa si ama labadan switch aan isku soo xirnaa taasay noqon doontaa kolley taas waa inaan sameynaa waxaan sameynayaa wayarkaas waa inaan ka jaraa switch haddaba wayarkan geliyo konogo delete switch kala soo qaado halkan keen okay delete saan markay tahay
spacekan dheereynaya badinaya si wayarkan iyo kan waa isku xiraynaa markaan 1/2 1/2 then and then one circle isna kan ku xir marka waa shirkad isku wada xiran markii loo fiiriyo waxaan rabnaa marka ay tahay okay labadan computer waxaa la rabaa inay isticmaalaan hal default gateway oo kana waxaan ka dhigaynaa waxa la dhahay virtual IP address aan ka dhigaynaa kan waa inay isticmaalaan default gateway kuwanitan way ahaadaan yani labadan router waa inay ahaadaan default gateway kuwii u hayay default gateway hadduu jidkan xirmo waa inuu halkan mari karaa hadduu kan xiran yahay kan waa inuu mari karaa kan priority waa inuu u lahaadaa kuwa hore and then yani kan la kaliya loo maro router 1 kaliya loo maro si marka dambena loo maro dhinacan markii kan soo go'o jidkaas uu soo xirmo waa intaas wax la sameynayo okay IP address kan waa inuu qoraan darna virtual PC IP address okay virtual address iska soo gaabaya halkan lagu dheeraanayo oo soo gaabiyay taada virtual address soo gaabiyay marka IP address kan wuxuu u dhexeeyaa labadan PC oo u dhexeyn doona insha Allah okay hadana start ayaan halkan 192.168.4.0/24 saan ugu aqoonsado aan ugu talagalay tan laakiin waxaan wada isticmaalaynaa waa hal default oo kulligood u wada dhexeeyo /24 waa isku wada mid arkaysan kan iyo kaas okay labadan kale oo dhinaca service-ka waxaan dhihi karnaaba okay 13.13.13 iskale /25 iskale daarto halkan waxaan leenahay 12.12.12.12 waxaan leenahay 21 ka Soomaalian 26 daadartid okay leenahay marka console PC marka router 1 ka soo bilaw okay copy interface internet ka waa 0.0.0.0 IP address ugu talagalnay 12.12.12.12.12 kan waxaan leenahay 11 okay space 255.255.255. waxaan dhahnay slash maxaa waaye 26.192 no shutdown that's it okay interface internet 0.0 IP address 12.12.12.12 255.255.255
92 no shutdown exit do bin 12.20.20.11 waxay open gareynayaa qaybtan kalena aan sameyno marka dhinaca kale 13 dhinaca interface service protocol ugu soo dhamaado nana waa jooga lagu garabo interface gigabyte 1/0 id address 13.13.13. maxaa kan /25 13 okay asna waxaan dhahnaa halkan get hand 25.25.25.128 no shut so router 3 way kana interface kaas interface gigabyte 1/0 interface gigabyte 1/0 gigabyte 1/0 id address 13.13.13.13.255.255.128 no shut do bin 13.13.13.10 I think don't qaldanayn waa shaqeynayaa okay handle wr kan waxaan leenahay marka exit okay si internet service xiisa ugu dhamaado router EIGRP aan sameyn doonaa router EIGRP 5 network 12.12.12.0 network 13.13.13.0 no exit end wr okay marka waxaan imaanay router 1 kan waa kasoo dhamaanay der kan marka waxaa la soo id interface brief waxaa noo taala labadan kaliya horta lagama rabo kan waa service ka moogtaran kan marka waxaa laga rabaa in si toos loo programeeyo in config key interface gigabyte 1/0 marka kan waxaan ka rabnay HSRB inaan qaybtaas u isticmaalno gigabyte 1/0 inaan isticmaalno rabnay okay id address 192.168.4. okay .4. waxaan rabnaa default inuu noqdo 1 so 2 aan leenahay halkan 255.255.255.0 no shut okay marka waxaan leenahay markii uu soo sameeyo stand 1 IP 192.168.4.1 waxaan sameynaynaa hadeer default gateway stand haddana waxaan leenahay 1 priority waxaan leenahay 105 okay haddana waxaan leenahay stand 1 prim okay marka ay halkaas marayso baashaasi waxaan leenahay stand okay waxaan rabnaa gigabyte kan hadda waxaan sameynayno hadda waxaan ku jirnay gigabyte kan ku jirnay 1/0 aan ku jirnay waxaan rabnaa marka inuu ka baxo dhinaca kale fast internet 0/0 inuu hadda ka baxaa rabaa marka 0 waxaan leenahay track okay fast internet 0/0 sababta marka fast internet loo gelinayo waxay tahay
hadda router 1 markaan joogno waxaan rabnaa IP address-kan gigabyte-ka lagana 41 la soo geliyay inuu jidkan maro markii aan rabno inuu baxsado oo yani dhinaca kale oo aadan rabo halkaas waa inuu maraa taas muhiimad ay tahay adana intaan leenahay kan waa ka dhamaanay okay waa ka dhamaanay waxaan leenahay marka and wr طبعا router 1 كان ما router 3 جماعة show id interface 3 hore ugu samaysnaa asna 13 ka u samaysnay 13 kan u samaynay ma samaynay qaybta soo ma nasi waxa 20 qaybta u rabno HSRB ga config interface gigabyte 2/0 I think was 2/0 waa sax saxanahay 2/0 okay waxaan leenahay IP address 192.168.4. kaas waxaan siinay 2.1 aan soo siinay aan maleynayo 4.2 aan soo siinay saan maleynayo show IP interface brief .4.2 aan soo siinay kan marka waxaa la siinay .3 255.255.255.0 no shut okay marka asna hadda xasuustiin kan waxaan ka soo sameynay godka dhexdiisa gigabyte kan 0 dhexdiisa soo programay kana programka soo kale oo badan ba uma baahna kan waxa la siinaa kaliya default gateway oo ahay .4.1 kaliya la siinaya standby 192.168.4. waxa ahay 1 IP aan ka tagay maleenaya IP aan ka tagay maleenaya IP 192.168.4.1 marka inuu soo gudaa waxa shaqeyn doono waxa shaqeynayo dadkii fada diiday oo shaqeynaya laakiin kuwan waxba kuma furnaa deer waxba nooma furnaa وانا محبوك جدا PC ذانيك okay PC مرفع علينا IP IP حاف جرى 0 IP 192.168.4 dot marka .2 waa la haystaa .3 waa la haystaa .2 waxaa haysta router 1 .3 waxaa haysta router 3 kan waxaa leenahay .4/24 192.168.4. default gateway-giisa wuxuu noqonayaa kan .4.1 wuxuu noqonayaa okay marka kaas waa kasoo baxnay waxaan leenahay pin 192.168.4.1 hadda dhahdid aad u shaqeynayaa router kan open gareynaya isna fiiri aad u open gareynaya router 1 ka open gareynaya wasda IP address-kii router 3 gana aad u open gareynaya halkan hadda aragtid hadda fiirisid waa kan wuxuu ku leeyahay qoraal ku soo qorayaa koo markii aan ka soo baxnayba qoraal soo qoray gigabyte inuu soo shidmay waxa ku sheegay halkan laakiin wuxuu ku leeyahay HSRBs status change gigabyte 20 group 1 state speaks standby yani waa sugayaa waa jidkii in la soo maran sugayaa waa kan kalena wuxuu ku siinayaa kulay sama baleenay priority oo keenaya siinaa kaas okay adaba waxaan soo siinay PC gaana IP address soo gelinay marka soo gaa PC ga hadda waa inaan dhahnaa marka
pin 12.12.12 jidka uu marayo waa inaan fiirinaa dot maxaan sameynay routeraan joogaa yani pc1 kaan rabaa inaan tago horta kan muxuu 12.12 kaasaan rabaa inaan bingareyno okay pin 12.12.12 ma shaqeynin that means EIGRB anaga maqan saan u maleynayo EIGRB anaga maqan sababtoo kan EIGRB waan u sameynay show run section EIGRB waan u sameynay EIGRB show run begin section EIGRB markaas waa u sameynay kan waa u sameynay kan 12 kaasoo ku jiro show run section EIGRB kan wuu u sameysan yahay kana show run section EIGRB ma sameysana okay config t router EIGRB waxay kan EIGRB giisa 5 network 12.12.12.0 iyo waxaan rabnaa inaan gelino network kale 192.168.4.0 and WR kana aan sameynay do show run section EIGRB waxaana uma sameysana asna samayn okay router EIGRB 5 network 192.168.4.0 network 13.13.13.0 okay hadda waxaan gelinay networkii and WR waxaan tagana pc1 ka oo kale hadaan ano pin 13.13.13.13 waa u bingareynayaa oo qaybtaniti ah pin 12.12.12.12 oo qaybtan ah pc2 gana pin 12.12.12.12 hadii u bingareynaya asna hadii labadan bingareynaya marka intay marayaan waaye waxay marayaan waa router 1 ka dhex marayaan hadaan tagno router 3 ga soo qaado waxaan leenahay show standby wuxuu leeyahay statuskaygu waa stand waxaa active u ah 4.2 priorities of 105 we have a router 1 gigabyte 01 ah waykaas kan router 1 hadaa dhahdina show stand wuxuu leeyahay active anahay kan wuxuu lahaa standby oo meesha ku kala gedisiin hadaba troubleshooting soo jidkanita u marasa u ogaano config t waxaan leenahay interface gigabyte 1/0 sharp damiya lana goobta horta wala damiya kan maxaa ka dhacayo marka waxa uu imaanayaa suuna wakana waas bedelay active oo soo noqday maadaama dadkan la soo damiyay
standigii waa ka baxay. haddaad dhahdid show stand waa kan active. markii hore muxuu ahaa stand inta aan la daminin godka kan. bc1 haddaad dhahdid bin sida normalka ahayd caadi u shaqeynayaa. bc1 kan caadi u shaqeynaya. hadda intuu marayaa marka trace wuxuu yiri 43 yaa maray. bc2 gana suurta binda waa u shaqeynayaa. waxaa marayaa halkan 233 trace 12 waxaa marayaa asna waa kan 43 marayaa. marka hadii router 1 kan soo shidno godkii no sharp wax isbedelaya. hadii router 3 ka tag wax isbedelaya soo boodana aragno. wuxuu yiri waxaa soo hadlay 42 waa soo hadlay isbedel halkan ka dhacay HSRB saarkuba waxaa usoo laabtoo dhahay stand waa la wareegay dhahay awoodi. waxaa la wareegay geedka qaybtaas la wareegtay 42 waa la wareegtay active on all das. hadda halkan tagtid show stand hadda dhahdid stand baa dhahdid waa kana start oo soo laabtay. marka hore maxaa waaye active kana show stand by hadda dhahdasna activekiis oo soo laabtay. hadda bc1 ku soo laabo. hadda waxaa maray 43 enter day intuu mar hadda fiiri waxaa bedelay 42 ay yimid 43 yaa qadka ka baxay. 43 qadka ka baxay 42 isku bedelay inta maray halkan. taas waxay ku tusinaysaa kan hadda awood leh. haddii keebabkan la jaro dhinacan maraya halkan waxay qaldan halkan waa routing maan routing waaye. okay casharka saadan ku dhameynay. habeen wanaagsan.